بسم الله الرحمن الرحيم. كلجين واد محسنتهين maanta waxaan shir ku qabanay xafiiska ra'iisul wasaare ku-xigeenka shirkaas oo la xiriiray maritime security yani arrimaha badda iyo amniga badda run ahaantii dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed markii hore waxa lagu eedan jiray in burcadbadeed iyo dhawaato ay ka jirtay dalka Soomaaliya marka xafiiska deputy prime minister-ga kulamo oo bila ah iyo ka dhaca kulamadaasna waxa looga hadlaa sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka badda weyn oo Soomaaliya ay leedahay ay ka dhacdo dhibaatadaas waxa ugu weynaa burcadbadeednimada iyo sunta iyo waxyaabaha dalka iyo dadka waxa u geysanaya oo badda lagu soo daadin jiray waxaan isku daynay anigu wasaaradda cadaalad ahaan sharcigii burcadbadeedda iyo afduubka badaha inaan horumarino sharcigaas oo hadda wasaaradda cadaaladda ay soo gabagabaysay oo aan rajaynayno inaan la wadaagno dowlad goboleedada dalka bulshaweynta Soomaaliyeedna maaragtay aan u soo bandhigno sharcigaas insha Allah wuxuu ku dhisnaan doonaa shuruuc fara badan oo Soomaali hore u lahayd iyo shuruucda caalamiga ay leedahay Soomaaliya marka run ahaantii shirka maanta waxaan ka soo qayb galay dowlad goboleedada wasiirada cadaaladda qaar ka mid ah iyo wasaaradaha kalluumaysiga iyo wasaaradaha gaadiidka iyo baddaba way ka soo qayb galeen marka shirkaas si fiican buu nooga dhamaaday waxaan rajaynaynaa shirkan balaha inuu noo socdo sharcigaasna aan diyaarino dowlad goboleedada iyo dowladda federaalkana insha Allah wada shaqayn wanaagsan in ay arintaas ay ka sameeyaan wada shaqayntaas oo socoto shirka dambana insha Allah waxaan rajaynaynaa in lagu qabto magaalada Kismaayo waxaan isku dayaynaa gobolada kale in lagu qabto marka waxaan u sheegay ummadda Soomaaliyeed shirka aan qabsanay inuu guul ku soo dhamaaday waxaan rajaynaynaa insha Allah wixii Soomaaliya lagu ilaalin lahaa badeeda shuruuca inaan diyaarino in ciidankeena badda ilaalinay iyo coast guard-kiina asagana la hormariyo marka guul buu nooga soo dhamaaday waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh إن شاء الله كل واحد كستول قبنا يا هرت وإن دولتنا الصومالية أي هرمود كأحد ودن كان صوماليا له وحصوم رأي دبعتوين وحنا الله بهني هذا هرت إن أنا قال إيمان وحبكي ودن كان معركة كهر مرين لهن بديس عن كهر مرين لهن بديس عن كو إلعلين لهن وحيابها أجوه رأيه ولا الله هنا وحاوي شروع هرين ويجرتي ما دام هذا النظام كفدرال كلا قاطع إن شروع ذي دب لوج لعبته والله باهين هاي وحكلا الله باهين هاي دنبي فربضان أهري لوج جرنجرين أو هذا عالم كان أنجوجنو سو زيادة بجرا دنبي إذا أصلا ما عرفتي إن لوجو درا شرعي عن أصب إيو حركة عقابة سومالية وأيضا الدنبي إذا أنا يكون قرنيهين معاونة ذا شيء هذا عالم كان سوماليا واحد جرا صاحبان لنا هاي oo dawladda taageeraan leenahay dawlad khaas ah aan sheegayna ma jirto laakiin anaga hadda u taagan dalkeen inaan horumarino difaacano shuruucdii iyo ciidankii lagu difaac lahaana aan diyaarino waan mahadsantiin mudane wasiir adigoo mahadsan waxaad jira dhalinyarada kalluumaysataa badaha xeebaha Soomaaliyeed in ay la kulmaan qalabkii run ahaantii wasaaradaha way kala leeyihiin shaqada wixii dambi ah fal dambiyada
waxaa lala soo xiriirayaa haddii boolista oo baaritaankeeda maaragtay ay shaqo ku leeyihiin xeer ilaalintii iyo maxkamadii wixii dembi laga galay dadka oo muwaadiniinta ah wixii kale oo siyaasad iyo nidaam ahna waxaa jirta wasaaradda maaragtay kalluumaysiga iyo wasaaradda dekedaha ayadana shuruuc iyo nidaam iyo habraac ay leeyihiin marka wixii wasaaradooyinkaas lagala xiriirayo in ayagana lagala xiriiro wixii kale cabasho guud ah kolley in loo soo gudbiyo madax